diintan ayagu ay dhoodhoobeen ay ku magacaabeen al-ibraahimiya, the Abrahamic religion, waxa ay ula jeedaan in saddexda diimood islaamka oo diinta sax ahayd oo ilaahay maanta qof bini-aadmiya meel allaale meeshu adduunka ka joogo hadduuna diintaasi aanu qaadan, tawxiidka aanu qirin, risaalada muxamadiga ahna aanu qirin, oo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam u aqoonsan inuu yahay nebigii iyo rasuulkii ugu dambeeyey ee ilaahay uu soo diray, qofka laga waayo taasi caddaan ha ahaado, madow ha ahaado, qaaradda afrika ha ku noolaado, ta yurub ha ku noolaado, siberia ha joogo, qof walba oo risaaladaasi ay gaadhay waqaamat calayhi alxuja risaaliya, xujadii risaaliga ahayna ay ku quntay, qofkaasi qof badbaadiya cinda allahi subxaanahu wa tacaala maaha, qof badbaadiya maaha. wuxuu mutaystaana waxa weeye waa cadaabka ilaahay jalla wacala. islaamnimana adduunyadan gudaheeda looma xukumi karo ee waa gaal weeya. waxaana sii amba qaaday xarumo cilmi baaris oo ay ka mid tahay xarunta la yidhaha Rand Institute oo Maraykanka ku taalla, oo sameeya cilmi baarisyo badan sameeya. Rand Institute waxay ku caan baxday inay sameeyeen baxthi kan ka duwan oo caan ahaa, xitaa buug baa lagu daabacay, luqada af carabigana waa lagu tarjumay. ilaa imka ma arag qof Soomaali oo baxhigaasi wada tarjumay, inkastoo la arkay in maqaal laga qoro af Soomaali laakiin baxhiga laftiisa lama tarjumin. baxhigaasina wuxuu ahaa haddii af Soomaali lagu tarjumo abuurka shabakada islaamiya oo qunyar socda, shabakaad islaamiya muctadila, abuurka shabakada islaamiya oo muctadila, oo ay dadka muslimiinta ay categories ama qaybo kala duwan ay u sameeyeen, oo iyagu ay doonayaan inay muslimiintii dib islaamkoodu ay ugu sharxaan. qaybaha ay u kala sameeyeenna iyagu ay qoondaysteen kooxaha muslimiinta ah ee ay iyagu doonayaan inay gurmudgareeyaan, ay dibadda ka riixaan, ay muslimiinta iyo caalamkaba ugu sharxaan in qolooyinkaas ay yihiin muslimiinta loo baahan yahay in islaamka saxa lagaga daydo. qolooyinna waxay ku magacaabeen dabcan sida caadadu tahay waa xag jir, waa mutaطarifiin, waa salafiyiin, hadallo noocaasiya iyo levels noocaasiya ayay ku dhejiyeen, iyagoo meesha soo dhigayaan inaynay kooxahaasi iyagu aanay matalin islaamka saxa. waxaan idhi muctamaraa loo qabtaa, waxaa laga qoraa buugaag baa laga qoraa, mujalladaad. anigu muddo dheer ayaan joogay Islamic Center Maraykan, masaajidna khatiib iyo imaam baan ka ahaa. adresskayga masaajidka meelay ka keeneen waan garan waayey, laakiin maalin baa qolada boosta ay waxay keeneen sanduuq weyn, box oo mujalladaad sida loo daabacay caqligaygaas aanu keenin. xaashiyaha ay ka samaysan yihiin mujalladaadkaasi ay ka samaysan yihiin aanu caqligaaga keenin. xaashiyaha kuwa ugu qaalisan hard cover bay ahaayeen, jildiye adag baa ku dhegsanaa, laakiin lacagta lagu bixiyey iyo mustawahoogu heerku taagnaa
أو يهي وحضيا ويصود أورن كرتو وأوح لو ترى جل إن قفقة مركوب عند الصاع وقبته مجلدات كم بذا يعني وقف عندي شيء كذا يعني وحكى لي المسألة ده بيكهلي أقوم بالو بحيي مال بالو بحيي جهد الدلال الدراسات بالو بحيي وحلا أنا فكرة دني بلوي واحد قبل عمتي جامعة هارفرد قبل عمتي درسي كان أو موضوع عاصي العقيدة أولا أي نمانتا كوجا بجبين إنه وحو كم جعابية هي الإبراهيمية دين العولمة دين كان لما الملوقي لما بسوا شقيي حرموا علم باريس وكيا له دولالك قلبيتك عالم الإسلامنا دب لو سو تبيي وحلينا هاي ودين عصب والنبي إبراهيم عن كحل الاثنين نبي محمدنا عن كحل الاثنين صلى الله عليه وسلم نبي عيسى نبي موسى عليه السلام العلاقة للحين سيدان إيري هرتو أنا شرحنا مقعة إن ربحنته وحي نسكوا فقني الموضوع يمقلينه إن ربحنتها لقدو ليو أما لقى أنبقى ذيو إني نفهنه إريقا الديانة الإبراهيمية أفكريس كرا الله يرد أبراهامك religion دينتي إبراهيمية صحافة يورباهنتا aad bay u soo noqnoqotaa bal waxa laga yaabaa dhulalka galbeedka in jaamacadaha lagu hadalhayo loo qabto mu'tamaraad loo qabto seminaarna loo qabto seminaaradaasi oo la isku keenayo dad kala diima ah oo u badan dabcan waa dadka muslimiinta kuwa sheegtay inay yahuud yihiin iyo kuwa sheegta inay yihiin kiristaan waxaan idhi mu'tamaraha loo qabtaa waxaa laga qoraa buugaag baa laga qoraa mujalladaad anugu muddo dheer ayaan joogay Islamic Center Maraykan masaajidna khatiib iyo imaam baan ka ahaa addresskayga masaajidka meelay ka keeneen waan garan waayey laakiin maalin baa qolada boosta ay waxay keeneen sanduuq weyn box oo mujalladaad sida loo daabacay caqligaygaas aanu keenin xaashiyaha ay ka samaysan mujalladaadkaasi ay ka samaysan yihiin aanu caqligaaga keenin xaashiyaha kuwa ugu qaalisan hard cover bay ahaayeen jildiye adag baa ku dhegsanaa laakiin lacagta lagu bixiyey iyo mustawahoogu heerku taagnaa au yahay waxa la yaabayso odhan karto waa wax loogu talagalay in qofka markuu gacanta saa uu qabto mujalladaadka kamida yani uu qofka indhihiisa soo jiidanaya waxay ka hadlayeen masalada bay ka hadlayeen aqoon baa lagu bixiyey maal baa lagu bixiyey juhdi iyo dadaal iyo daraasaad baa lagu bixiyey waxa la yiraahdaa fikradani bilowgii waxay ka bilaabantay jaamacadda Harvard bay ka bilaabantay waxaana si amba qaaday xarumo cilmi baaris oo ay ka mid tahay xarunta la yiraahdo Rand Institute oo Mareykanka ku taala
oo sameeya cilmi baarisyo badan sameeya. RAND Institute waxay ku caan baxday inay sameeyeen baxthi kan ka duwan oo caan ahaa, xitaa buug baa lagu daabacay, luqada af carabigana waa lagu tarjumay. ilaa imka ma arag qof Soomaali oo baxthigaasi wada tarjumay, inkastoo arkay in maqaal laga qoro af Soomaali laakiin baxthiga laftiisa lama tarjumin. baxthigaasna wuxuu ahaa haddii af Soomaali loogu tarjumo abuurka shabakada islaamiya oo qunyar socda. شبكات إسلامية معتدلة، أبورك شبكات إسلامية ومعتدلة، أو أي ضد كمسلمين أي categories أما قيبك لدون أي أسميين ويجو أي دون يعني أي مسلمين تدب إسلام كله أو شرحان قيبها أي أكل السميين يجو أي قندستين kooxaha muslimiinta ah ee ay iyagu doonayaan inay burmudgareeyaan, ay dibadda ka riixaan, ay muslimiinta iyo caalamkaba ugu sharxaan in qolooyinkaas ay yihiin muslimiinta loo baahan yahay in islaamka saxa lagaga daydo. qolooyinna waxay ku magacaabeen dabcan sida caadadu tahay waa xagjir, ومتطرفين وسلفيين. هذا نوع عاصية الليفلز نوع عاصية أي كل شيء يوم ماشي صار رجايا إن أي كوحها سيوم أني إن مثلين إسلام كصحة مركا دين كان أيوه أي دردوبين أي كم عامين الإبراهيمية الأبراهام religion وحا أي أوريج هذان إن سدح للديمود إسلامك ودين تصحى وإلهي ما أنت قف بلا آدمية مل ألا لم يش أدونك كتشوغو هدون الدين تاسي آنو قاضم توحيدك آنو قرن رسالة محمدية أهنا آنو قرن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أقانسن إنه يهي نبيي يا رسولك وقدم بيي إلهي وصادري قفل لجواية تاسي عدان هذا مدو هذا قارد أفريقيا هكون نولادو تيرو هكون نولادو سيبيريا هتشوغو قفل والرسالة داسي أي قادي وقامت عليه الحجة الرسالية حجة الرسالة هنا أي كوكنتي قف قاسي قف بدبالية عند الله سبحانه وتعالى ماها قف بدبالية ماها وحمو تيستان وحوير وعذابك إلهي جل وعلا إسلام نمرة أدو يدن قده هذا لو محكومي كرو وقالوية اللهم صل على محمد waxaan nidhi taasi waa mid weeyaan waxay doonayaan in ahnaan saddexdaa diimood meel hal isugu keeno oo hal la mideeyo. waxay soo saareen buug ay ku wada daabaceen musxafka qur-aanka iyo kitaabka yahuudda iyo bibleka kiristaanka saddexdii oo meel ku wada daabacan mujallad keliya ku wada yaala ayay soo saareen. taasina hadday wax kuu tilmaamto waxay kuu tilmaamaysaa ujeeddada yoolka hadafka fog ee ay leeyihiin oo ah in saddexdan diimood la isku daro.